kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni caafimaadka waxaan kaga hadli doonaa cudurka kaneecada laga qaado. Kaneecada waxaa laga qaadaa cudurka duumada. Cudurkan Soomaali aad bay u yaqaaniin sababtoo ah kaneecada ayaa aad ugu badan dalkeena. Waliba cudurkani duumada wuxuu ka mid yahay cudurrada halista ah ee faafa. Inta badan waxa uu si daran u saameeyaa carruurta ka yar 5 sano kuwaas oo u dhinta. Waxaa sababa cayayaan loo yaqaano Protozoa waxaana ka dhasha 4 Plasmodium oo kala ah Plasmodium falciparum waa nooca ugu khatarsan ee dhimashada sababa waxaana laga helaa meelaha kuleelaha ah. Plasmodium malaria noocani aad uma badna waxaana ka caansan noocyada kale. Plasmodium vivax waa nooc aad u caansan waxayna sababtaa in ay dib ugu soo noqnoqoto qofka. Plasmodium ovale noocan aad buu u yar yahay inta badan waxaa laga helaa Afrika. Intee ugu badan ee laga helaa duumada. Meelaha ugu badan waa meelaha ay biyaha fariistaan sida haraha, waqda, biyaha roobka oo hal meel la isugu keenay, bulaacadaha mar waliba qoyan iyo guryaha meelaha ay biyuhu ku jiraan sida haamaha. Sidee ayuu kugu imaan karaa ama kugu soo gudbi karaa? Inta badan cudurka duumada waxaa faafiya nooca kaneecada ka mid ah oo isla markaana dhedig ah oo loo yaqaan female anopheles mosquito. Kaneecadani ayaa qaniinta qof qaba cudurka iyadoo quud raadis ah waxaana soo raacda oo caloosheeda soo gala qayb ka mid ah cudurka. Kadib ayay haddana qof kale oo fiyow qaniintaa oo ku reebtaa cudurkii. Calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah qarqaryo iyo qandho wada socda, dhididka dambeeya, madax xanuun zaa'id ah, afqaraar iyo lalabo, lafaha, murqaha, kala-goosyada oo xanuuna qofka, cuntada oo ka qofka. Ka hortag ma leedahay duumada? Waa in la socodsiiyaa ama la dareeriyaa meelaha biyaha ay isugu yimaadeen ama biyo fariisadka ah. Waa in biyaha la cabayo ee ku jira haamanka lagu daraa maadada chlorine si aysan ugu dhalan kaneeco. Waa in la buufiyaa ama qiiq lagu shidaa guryaha. Waa in maro kaneeca la xirtaa ama sansiyeri mosquito net. Waa in lagu dadaalaa nadaafadda guud iyo mid gaar ahaaneed. Waad ku mahadsantihiin daawadayaal qaabka wanaagsan aad nala socotaan. Waxaan idinka codsanaynaa inaad page-ka noo follow garaysaan noona sii share garaysaan si uu u gaaro dad badan oo ka faa'iideysanaya barnaamijkan caafimaadka ah. Mahadsanidin.